السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا channel كنا ملاب ملاب waxaan idin haynaa waxyaabo cajab macaan sidii kebab inoo soo gala garab waxaan ka dheli doonaa dalab qosol kina farxadina waa soo muuqaal yar oo kaabga muuqaalana sabab idin ku dhaafay yaab maanta waxaan dooni haynaa in aan ka hadalno filimka cusub ee labaad Shahrukh Khan uu soo saaro sanadkan filimkan ayaa isla maanta oo taariikhdu ay tahay 7 bisha 9aad sanadkan 2023 uu dabka ka soo qaaday isla maanta ayaana laga daawanayaa caalamka hadda xogaha waxay sheegayaan in filimkani uu ku socdo wadadii uu ku jibin lahaa recordkii uu set gareeyay filimkiisii hore uu soo saaray sanadkan January ee lagu magacaabay Pathaan filimka Jawan macnaheedu horta waxa waaye soldier filimkani oo uu qorsheeyay in uu soo bilaabo sheekadiisa 2021 September bisha 9aad ee September ayaa maanta dabka laga soo qaaday oo la soo bandhigay cinemas caalamka gees to gees laga daawanayaa saake aroorti fanska Shahrukh Khan ayaa waxay wadooyinka iyo shaleemo walba horteeda la taagnaayeen sawiraantiisa iyo dabaaldeg markaasi iyagoo safaf dheer ku jira si ay markaasi qayb uga noqdaan daawashada filimka oo ay uga hor dhicin dadka falanqeeya aflaanta Bollywoodka ayaa inta badan waxay qiyaasi hayaan mise way saadaalin hayaan in filimkani uu noqon doono mid super hit ah oo xitaa jabiya recordkii uu set gareeyay Pathaan marka Shahrukh Khan filimkani waxa kala qayb galay actors ka horta jilaasha intooda badan waxay u badan yihiin South وانا فيلم كيسا جوان وحو انتو يعني وحو بدنيها مد ساوث انديان عمل وحو بدنيها فيلم كا وحا سو صاري هايا فيلم كان شركة دا اسيغ حاسكيسا اسكوليهين ريد تشيليز بروديوسر ونواحا كا حاسكيسا غوري خان فيلم كاني وحا دايركت غرين هايا اتلي او مركاسي nin inta badan direct gareynay mise hagay filimanta South Indian ka kani ayaa noqonaya filimkiisa ugu horeeya ee Hindi Bollywood ahaan markii la dhaho filimanta Tamil ayuu u badnaa filimkiisa koowaad ee Hindi uu direct gareeyo waa midkani Jawan Gauri Khan Shahrukh Khan filmaan badan ayay u produce gareysay oo soo saartay waxa kamid ahaa Chennai waxa kale oo kamid ahaa فيلمانتي أي صارت من هنا شانتي راون تشنا إكسبرس يفيلمان كانوا فربضان أي صارت عند مجا ريد تشيليز انترتينمنت أي صارين مركب فيلم كان أي هذا وليد دواشي سو صعدا دلقة كينيا وحلقة داونها يا عوا حلقة داونها يا سينماس كواوين سينميدان ويزجت فيلم كان شاروخ خان dual role ayuu ku jilahayaa waa yani laba kaalin ayuu ka ciyaarayaa filimka jila ahaan markii la dhaho laba qof camal ayuu kala jilahayaa filimka waxaa sidoo kale marti ku ah oo ka soo muuqanaya Sanjay Dutt filimka waxaa kale ku jirta Deepika oo markii hore sanadkan ay isla soo saareen kula jirtay filimkii Pathaan John Abraham iyo ay kula jireen isla iyada ayaa hadana filimkanayto komiya camal way ka soo muuqanaysaa marti camal ay kaga soo muuqanaysaa role yar iyo Sanjay Dutt waxa kale oo kamid ah filimkani actors ka waaweyn ee South Indian ka Vijay Sethupathi Nayanthara iyo Priyamani iyagoo fara badan ayaa ku jiraan sanadkii 2019 ayaa xanxan jirtay in Shahrukh Khan uu soo saari doono filimkaasi oo uu kula heliyo Tamil director ka Atli ayaa maalmaha kamid ah 2019 xiliyadaasi ku dhawaaqay in sheekadaasi ay jirto wada hadalkaasina uu socdo filimkana ay qorsheynayaan bishii shanaad 2021 ayay go'aansadeen inay u gudo galaan filimkaasi oo markaas ay soo bandhigeen in dubitaankiisa iyo habeentiisa ay bilaaban doonto filimkan ayaa markii hore waxaa si fiican daaha looga qaaday June 2022 filimkana budgetkiisana waxaa waaye 300 oo crore waxaa qoray sheekada Atli ayaa qoray isaga ayaana director ka ah
Atlee waa director weyn oo South Indian films ee Tamilka u badan wuxuuna wataa kooxdiisa inta badan iyaga ayaa kala qayb galaya sida stunt directors dadkii dialogue qore heesihii kulli dadkiisa u badan yihiin dance choreographer-kii kulli aan dhahay dance choreographer waxaa ka ah Farax Khan oo Shah Rukh Khan inta badan ay iskala shaqeeyeen filmantiisii hore filimka ayaa waxaa lagu duubay goobo fara badan oo ka mid ah India goboladeeda inta badan waxa uu ku bilowday Pune filimkan ayaa isla sidoo kale Hyderabad iyo Mumbai iyo Chennai lagu kala duubay waxaana editingkiisa la bilaabay sanadkani bishii koowaad 2023 editingkiisa la bilaabay 6 bilood ayayna ku qaadatay marka hore waxay qorsheynayeen inay soo saaraan filimkani June balse editingkii iyo wixii ku daba dheeraaday ayay go'aansadeen inay soo saaraan bisha 9aad isla maanta ayuuna ku jira suuqa waxaana lagu qiyaasay haya oo la saadaalinaya filimkani inuu noqdo mid yani jawiya recordkii hore uu set gareeyay Pathan haddii uu jabiyo recordkaasi Shah Rukh Khan ayaa si toos ah wuxuu noqonayaa boqorka Bollywood inkastoo inta badan hadda asaga la dhaho waa badsha of the Bollywood marka suuqayta filimkan muuqaalkii June 2022 soo baxay ayaa bilaabay suuqayta filimka kadib markii la postpone gareeyay taariikhdii uu soo bixi lahaa Jawan teaser mise trailer ayaa la soo saaray bishii 7aad ee sanadkan oo wuxuuna noqday teaserkii ugu horeeyay ee India within 24 hours ku gaaro daawashadiisa 112 million views waa teaserkii ugu horeeyay ee markii la soo dhigo ku gaara within 24 hours 112 million oo daawasho ah within 24 hours marka waxaa loo saadaalinayaa in uu noqdo filimkan midka ugu awoodda badan sanadkani sababtaasi iyo sababo kale la xiriira dhanka dhaqaalaha hadda isla saacada hadda maadaama uu socdo waxa uu soo geliyay filimkani ayaa waxaa la sheegay in uu yani gaday kulli dhammaan tiketyadii maalinta koowaad loogu talagalay cinemas in ay gadaan wuu wada gaday wax u soo haray oo banaanka ka yaala ma jirin marka waa uu buuxiyay una buux dhaafiyay shaleemooyinka filimkani waxaa distribute gareynaya Pen Studios oo xuquuqda filimka qaateen North India markii la dhaho West Indiana waxaa distribution ka qaatay Pen Marudar Entertainment ayaa qaateen marka arrimo badan oo ku saabsan ayaa jiraan filimkani xogtiisa iyo wixii soo dhameystirana baraha bulshada kulay hadda si fiican waa loo arkoyaa waana laga socdaa isagoo Soomaali ah Soomaaliyaysan kulay waa la gaari doonaa waa uu soo bixi doonaa balse hadda shayga ugu weyn ee maanta la hadalhayo Bollywoodka maadaama maalmihii la soo dhaafay haddana Gadar 2 iyo aflaan kale aad u fara badan ay haysteen suuqa laakiin maanta jab weyn ayuu ku yahay dadkii sii maamulaya suuqa in filimkani uu soo saaro Shah Rukh Khan oo yaraantiisii 90s iyo 2000s-kii hore waxaa lagu bartay in yani uu soo saaro aflaan jacayl iyo character romantic waxyaabahaas noocaas balse hadda isagoo 50 iyo 60 meelahaas faraha la sii galayo ayuu wuxuu go'aansaday in uu dib u habeyn ku sameeyo jilinkiisa markaasi dhinaca dagaalka iyo action thriller uu xoga saaro marka filimkani ayaa wuxuu noqonayaa filimkiisii labaad isla sanadkan uu soo saaro oo marka asaga ah action thriller filmaanta action thriller ayaa hadana waxaa uu kaalin weyn ka qaato suuqa kala wareegay action thriller actors-ka ku fiicnaa dhammaantood ayuu suuqa kala wareegay maadaama ninkan jilitaankiisa uu aad u wanaagsan yahay wax kaloo jiro dabcan Jawan tiketyada la book gareystay filmaanta markay soo baxayaan ee cusub yihiin tiketyada waa la sii book gareystaa oo shaleemooyinka waa la sii qoondeeyaa inta kursi inta kii kale kulli tiketyada la gadi lahaa marka sanadkan recordki jira wuxuu ahaa in filimkiisii hore ee January uu soo saaray ee Pathan oo suuqaasi isaga jabiyay laakiin isla
jawaankii filimkiisa labaad sanadkan ayaa haddana la sheegayaa in uu jabiyey recordkii uu sadgareeyay Pathan. Marka jawaan iyo Pathan way kala daran yihiin. wuxuuna jabiyey recordkii uu Pathan sadgareeyay bilowgii sanadkan. Marka filimkani dabcan indhaha ku haya. sheeko ahaan filimkan wuxuu quseeyaa isagoo askar miya waxaan noocaas prison sheeko noocaasa marna wuxuu jilayaa aabuus ka dhigayaa haddana marna wiilkiisu iska dhigaya. marka waa arki doontaan oo daawan doontaan filimkan uu idiin soo gaari doona ayaan rajeynaya insha allah. balse la socda suuqa hadda jawaan ayaa haysa. waa inoo soo gasheen garabka dhalin dalab ilaa iyo kulanti dambe mac salaam.